kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaynu muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa faa'iidooyinka laga helo cunidda calooleyda. balse daawada inta aan muuqaalkeena gudagelin aan ku xusuusiyo in muuqaalka aad laag inoo saarto sidoo kalena aad sii sheergarayso si muuqaalku uu gaaro saaxiibo fara badan oo markaa ka faa'iidaysta macluumaadka aynu halkan kusoo baahino. halkan waa kanaalka Hilaal Production oo aad uga barateen muuqaalo xiiso badan. calooleydu ayaa inta badan la jarjaraa waxayna dadka inta badan ay isticmaalaan midda ariga iyo sidoo kale idaha. bulshooyinka qaar ee adduunka ayaa muddo dheer adeegsanaya calooleydu waxaana laga helaa maqaayadaha ku yaala Aasiya, Afrika iyo qaybo badan oo ka mida Ameerika iyo Yurub. waxaana laga helaa faa'iidooyin badan oo caafimaadka ah marka la barbar dhigo hilibka kale ee caadiga ah. waxaa la cabaa fuudka calooleydu, dadka qaarna waxa ay shiilaan calooleyda oo ay dhadhan markaa u yeelaan. caafimaad ahaan calooleydu waxaa laga helaa faa'iidooyin badan oo isugu jira borotiin iyo nafaqooyin kale oo muhiim u ah caafimaadka. faa'iidooyinka laga helo calooleydu waxaa laga helaa fitamiino iyo macdano kale oo muhiim u ah jirkeenna. marka la cuno calooleydu waxaa laga helaa waxyaabo u wanaagsan caafimaadkeenna, sida marka ay ku waramayso warbaahin ka faaloota arrimaha nafaqooyinka iyo sidoo kale caafimaadka. waxay ka hortagtaa dhiigyarida. calooleydu waxaa si aada uga badan fitamiinka la yiraahdo B12 taas oo ka hortagta dhiigyarida, gaar ahaan qofka la daalaadhacayo dhiigyarida ee aan socon karin. waxay caawisaa dhismaha lafaha iyo murqaha. calooleydu waxaa laga helaa borotiinno. borotiinka waxa uu qofku ka caawinayaa in markaa ay dhismaan murqaha iyo sidoo kale lafuhu. calooleydu waxaa laga helaa dhammaan 9 maado ee loo yaqaano amino acidska oo uu u baahan yahay jirkeenna si markaa ay u shaqayso, sida ay ku waramayso barta ka faaloota arrimaha nafaqooyinka iyo caafimaadka. waxaa ka buuxa macdan iyo fitamiino. calooleydu waxaa ku jira maadooyin ay ka mid tahay calcium. macdantan ama sidoo kale maadooyinkan waxay dadku ka caawinaysaa unugyada shaqooyinka uu qabto difaaca jirka iyo in markaa jirka uu shiido cuntooyinka markaa laga helo karbohaydrateska. maadooyinkan ku jira calooleydu waxay qofku ka caawinaysaa hagaajinta hidde-sidaha iyo sidoo kale caafimaadka quumanka. miisaan dhimista. qaadashada cuntooyinka ay ku badan yihiin borotiinku waxay qofku ka caawinaysaa maamulka cuntada iyo sidoo kale qaadashada iyo miisaan dhimista. qaadashada cuntooyinka uu ku badan yahay borotiinku waxay qofku ka caawinaysaa inuu dhimo miisaanka, islamarkaana waxaa hoos u dhacaya heerka cunto qaadashada, sida markaa laga soo xigtay warbaahin ka hadasha arrimaha nafaqada iyo sidoo kale caafimaadka. halista calooleydu waxaa ku badan kolestaroolka marka la barbar dhigo hilibka kale. dadka qaar ee qaba kolestaroolka ayaa laga yaabaa in siyaabo kala duwan markaa ay u saamayso. haddaba daawade waad ku mahadsan tahay haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkeenna. mahadsanid.